haddii aad ogeydeen cayaaraha inay ka waranto banooni la tuurayo iyo gool la dhalinayo haddaad ogeydeen in Manchester iyo Arsenal iyo tii kale maxaa la dhihi jiray Liverpool iyo aad ogeydeen Saudo maanta waxaan ka wareysan doonaa wadamada ay tagtay in badan yaraanteed waxaan u maleynaa lugaha lagama dhaqin doorooyinka lugaha laga dhaqi jiray Soomaaliya ilaa aniga balweyna ka imaado moogta marka socodka waa free way Soomaaliya janta ku disho orod ku tagi jirnay okay waa ka waad dareemaysaan boondada tagi jirtay Soomaaliya orod boonda liqliqat liqliqata tagi jirtay so haddana Mareykan insha Allah Ilaahay ha caafiyo ha dhaafo meelo badan ayay tagtay wadamo kale oo adduunkana way tagtay so wadamada aad tagtay laakiin hal mar Mareykanka ha ka boodine Mareykanka nooga bilaabo state-da aad tagtay waa mahadsantahay cabsanaan horta saa la socotaan wadanka Mareykanka wuxuu u kala qaybsamaa conton state ama conton gobol saa ogtihiin waxaana u maleynaa hadda ugu yaraan 25 gobol inaan tagay 25 cuntay hahay rajana waxaan ka leeyahay inaan maaragtay tago gobolada loo yaqaano southka ama westiga kuwaas oo inta southkana waa goboladii maaragtay cunsurinimada maaragtay waagii slavenimada aadka ugu maaragtay ugu badnaayeen waxaana kamid ah gobolada aan xiisaha u qabo inaan tago marmarka qaar xooga cabsi yar ugu jirto waxay tahay Alabama iyo Oklahoma iyo Idaho oo kaleeto sidoo kale alaabiya cadaanka ay ku badnaayeen alaabiya cadaanka baradha bas ka baxda dhulkaas qaarkood ayay iyo Texas oo beeraley iyo maaragtay lo'da dhaqdan marmarka qaar Soomaalida waxa jirta marka tusto video maaragtay magaalada hadda deganna oo Columbus dhexdeeda waxa laga yaabaa meel ay jirto 5 kilomitir in maaragtay beer ku dhextaal magaalada dhexdeeda oo galay ka baxda meesha Westerville intaadan gaarin isbitaalka markaad dhaaftay si fiican waa beero meesha soo dhanba marka sawiran qaaday waxaan xusuustaa Allah u naxariisto hooyadii hadda kor u diray markaas tirna hayda Mareykanka maxaa u dheedeelay tiray beeraley ma ahana markaas hooy Mareykanka dadku u taajirsan waa beeraleyda ugu taajirsan si fiican marka gobolka Hawaii la dhaho inkastoo maaragtay Mareykan uu ka tirsan yahay haddana waxa laga yaabaa diyaaradda ka qaad New York inay ku sii wadayso in ka badan 6 saacadood 6 saacadood oo 6 saacadood soo markaan ka bilaawno Columbus aad ka tagaysid ilaa ay meesha safarkaaga isku dar meeqa saac lagu tagi karaa wallahi horta waxay ku xiran tahay diyaaradda Ohio inta ka baxdo Hawaii tagta badana ma jirto marka ina gobol kale sii martid isku dar saacadaha 10 saacadood 10 saacadood isla Mareykanka la maray marka waxa laga yaabaa adoo Nairobi u socdo kale sida aan hubinaya Soomaali uma socono may inta u soconaa Mareykan dhexdiisa Mareykan la u soconaa 10 saacadood oo diyaar ah ma lugeynayno warkaas idinka sheegi doonta ani meesha soo kala uma socdi horta maba aadayo waxa kale jirto gobolka loo dhaho Alaska maanta hadaan gaarigayga qaato inkastoo Mareykanka ka tirsan yahay dhulku ma tagi kari hadda u baahanahay waa inaan Canada dhaxmara ama inaan markab raaco okay waana gobolka ma aragtay xuduudda Mareykanka ilaa Asia ama Ruushka isku xiro oo qabow aad u badan yahay Alaska Allah badanaana ma aragtay dadka inaad tagto marka هاي jaakadihii aad ma diyaarsatay hawaayahay wallahi horta xilliga aan rabay inaan tago waa xilliga kulaylaha leela qabo ma ihi okay waa dhumar rabtaa naftirkaaga okay aan ka sii baxno Mareykan wadamadii kale ee aad aaday wadamo badan ay jiro Canada inkastoo qayb Mareykan kamid ah maaragtay aan badana dhaxno Europe ay jirto wadamadii aan tago oo aad ku jecelahay waxa kamid ah Ingiriiska oo kale magaalada London sidoo kale Jarmalka waxaan ka tagay magaalada Berlin caasimada iyo Vancouver wadamada la isku dhaho Scandinavian-ka Norway Sweden Denmark sidoo kale Holland maxaan ku radaa Belgium dhowr wadamo ayaa jiro Talyaaniga oo kaleeto Switzerland oo kale laakiin wadankii ay isleeyahay Allah ilaahay Europe aada uga helay qaabkiisa iyo furfurnaashiisa dadkiisa Ingiriiska ama waa baaba dad badan ayay maaragtay ugu qaraarin inta kale wallahi dadka ma aragtay ilbax sidaas ma aha so reer Sweden iyo reer Italy iyo Germany waxa leedahay luuqiska galay idinka wallahi maybe luqada ku hadlaan garawaayay ma aragtay xogaa dadka ma aragtay ma waxa laga yaabaa luqadda hadda Mareykan ku isticmaasho English waaye sax waa so Ingiriiska tagtay waxa dareemaysaa still dhulkaaga inaad joogtid maadaama iska luqadii la ay tahay sabab si fiican laakiin Talyaani marka lagu la hadlo waxa u maleynaa in lagu canaananayo u maleynaa Talyaani waxa waa baroonayo dadkiisa ma aragtay maadaama isku dhaqan qanaga laga hadlaayo buongiorno bellissimo maanta dhan lagu hayna laakiin wadanka la yaabo waxay tahay wadan la dhaho Switzerland
waa dhul qabow dadkiisana waa qabow yihiin waxyaabaha kaliya ka yaabana waxay tahay dadka maba hadlaan qof walba hataa baabuur raacisid hadaa maaragtay baska raacisid hadaa dukaan wax ka gadanaysid qof walba dhagaha wax ugu jiro shub waa kuli macnaha dadka dhan dhagool miya mise maya macnaha maba hadlaan maba qayliyaan kii male anagana Soomaali alaabtii la dhihi jiray anagana Soomaali waa taqaana baabuurkan soo galayna maxaa la yiri xaajiro alaabtii tar in lagu hadlaayo kale hadda goor waxa dhacday sanadii 2014 aniga iyo waxa jirtay gabar Hindi oo Canadian oo saaxiibanay gabar South African waxa isla saarnayn tareenka la dhaho tram oo ku yaalo Amsterdam Holland marka saddexdeena waxaan ka kalimaanay dhowr wadan waayar isma aan arag waa sheekaynayna waa daldalmayna tareenka dhan dadka fuulo dhan oo aaminsan qof walba soo fiirinaa waxay leeyihiin saddexdan qof ma waalayeen dad waalna soo gasay waxaan leenahay maaragtay anaga European ma nihinayra marka aan u diimina waayahay waxyaabaha kuugu yaabka badnaa ee aad la kulantay intaad safarka ku jirtay horta waxaa jirta waxyaabay iigu yaqaanay horta wadankii iigu qaalisanaa ee aan tagay oo aan nasiib u yeeshay waxay ahayd wadanka la dhaho Falastiin oo maaragtay dad badan in aad uga baqaan tagistiisa dadka qaar ee baasaboorada qaar wata aan loo ogolayn maadaama maaragtay wadanka wili maaragtay xoog lagu haysto waxaan ku raadayay sanadii la soo dhaafay aan nasiib u yeeshay inaan ku soo dukado masaajidka Al-Aqsa oo maaragtay qof walba soo yaqaan taariikhdii Israa wal Mi'raaj ay ka dhacday marka waxyaabihii iigu yaabka badnaa waxa ahayd muddo 4 ilaa 5 saacadood ina maaragtay borderka laga gudbaayo Jordan Urdun ilaa Falastiin lagu haysto sababtana waxay ahayd ma aha macnaha in lagu diida wadankaasi maadaama aan muslim ahay wadan xoog lagu haysto muslimna aan u socdo waxa dhacday gabar waxa jirta cadaan oo Mareykan oo isla soconay oo hortayda taagneed 2 daqiiqo kuma iqaadanin inta u socotaa Jerusalem soo gal waa loogu dhuftay wareeg soo waxa la fiirinayaa qofka diinta uu haysto iyo xijaabkii iyo dan waxa la gaar noo dhiga boqol inkastoo xataa ay maaragtay dadka Carbeedna ay uga sii adag tahay qaasatan qofka duuba Falastiini yahay marka mid waa taasaa ee wadanka kale ee ugu qiimaha badnaa tagana waxay ahayd Sacuudi Carabiya alxamdulillah ina umradeedii soo guto Makka iyo Madiina aan tagay markii ugu dambeysay 2022 sanadii hore hadda wax inkastoo markaasna ay jireen laakiin hadda waxyaabo oo social media aan ka aragnaa jiro oo ah cimrada markii la tago ama xajka markii la tago dadka way cimriyeystaan ilaahay tuugaan rabbi tuug iyo dambi cafin ayay ku jiraan in ilaahay weydiistaan laakiin hadda waxa la arkay qof walba Snapchat iyo meesha la joogo oo laga yaabo qofka 2 saacadood inuu meesha joogo laakiin 30 daqiiqo bis istaghfirullah uu dhahay inta kale oo dhan social media iskaga jiray ma la kulantay inta joogtay markaas horta waxyaabo waxa jirto horta qof walba ilaahay buu rasuul sallallahu wuxuu yiri inama al-a'maalu bin-niyyat macnaha qofka si kasto sawir isaga qaaday si kasto video isaga qaaday niyadaada ku xirantahay hadii aad leedahay walaalkan kale ee aanan awoodin inuu yimaadaan rabaa inaan videogan la share gareeyo ama aan dhiiri galiyo soo u yimaado waa shay fiican hadii aad leedahayna ma aragtay waxa adduunka rabaa inaan tuso inaan tagay dhulkii barakeysnaynay kulli mar walba wuxuu ku xirantahay sababta aad u tagtay wada kala waa ha waxaan xasuustaa anaga waagi maalintii aan ku tagnay group ayaa isla soconay waxayna nagu dhaheen macnaha hotelka markaa ka soo baxnay ilaa xaramka garbaha is haysanay hoos fiiriyay dhaheen waxba telefoon ha qaadin waxba ha sameeynin ilaa aan ka hor istaagna Kacbada wax socday ma aanan ogeyn Kacbada markaan u tagnaa hal mar indhaha furnay maxaa yeelay macnaha waqti wixii markaa u jeedid umar walba asaan u sii fiirinaysay mar hal mar wada aragtid waa laba kala tamaam marka fikrad fiican ay ahayd alaabtii surprise oo kale fikrad fiican ay ahayd marka macnaha marka Kacbada hore ka aragtid qalbigaaga sibuu isku bedelaa laakiin maalmihii dambe alxamdulillah waa fursad waa u helay inaan picture iyo video ya qaato laakiin ma aragtay laakiin waqtigaaga badna waxaas ma gelinaynin maya because ma geli kartid oo mararka qaar oo ka soo qaadada
عمرتي سمينيسد معناها حربتها أنا سميسد ما وقتها مدة قابن ما دام هذا مسؤول ربي أنا هذا ما دام صلاة لقى ربو عمرته كل قفك بنا آدم كقفل بيحكوا حرنتا أكتف نمديس وحلا جاي والله بس على 6 ساعة أنا قاعدته هو أنا مرت الدواف كسميسد تضامر أنا مقام إبراهيم قداش يسكت كتد لبرق عصونا بيه زمزم كأنا عبتي كدبني أنا آدي الصفا مروة تميه أنا اسكجرتي معناها وحيا أبو حاجر موقت عمرتي كاجا جابي كرتو marka hada telefoonku mashquulshid waxa laga yaabaa laakiin nasiib wanaag waxa jirto maadaama qofka bini'aadanka uu yaraan 3 ilaa 5 maalmood uu meesha joogayo maalmo kale inuu fursad u helo inuu video ya qaato inuu picture qaato laakiin markuu umrada sameeyna qofka aad uma awoodi karo fikradayda maxaa kuugu yaab badnaa marka waxyaabo iigu yaabka badnaa waxa ay tahay qof xaalamka dad badan ka imaaday qof walbana ma aragtay maxaa la isha qiiradiis waa kala duwan tahay qof waxa arkay iska fuura oohin yaa garaacay marka cidna ma garaacay qiiro bas qof waxa laga yaabaa ma aragtay maanta sawir iska qaadana qof waxa laga yaabaa iska hor fariista kacbada iska fiirsana maanta dhan fikaraale bas macnaha qof walba kala duwan laakiin aniga tii igu yaabku madad waxay ahayd waliba Madiina ka dhacday arrintan masjid nabawi aan joognay waxa dhacday qaybta roodada dumarka qayba loo furaa marka dad badana marka waxay u maleeyaan dhismahan hadda taagan ee masaajidka inuu yahay dhismihii nabiga sallallahu alayhi wasallam uu dhisay ma aha أنا واحد ولا بدل مكتب مركا حاجرت ماما وحن أمنا هدانا قلدنين إني باكستان من إنديا كإمادي حد على لبرك عصونا أنتو كنا ماشي إسكف في الدنيا يعني قبل كان صاحبنا هاي ماما ده وسوا أرد خرطي أنت مرتي دربي ماشي أنا أنت قبصتي اسكت ضبطي شو مسك أنا قاعدة رت عمل مركاسي أنت سوجي ستينا فيرسي مركاسي حلو نيدا وحكي كذا هذا لا أنا حلف ديسين ما كفاءة ديستان ها دربي اسكو حق مركا معناها qofka ma ogta inaa meesha joogto ilaahay caabudida ugu muhiimsan aanta darbiga inaa taabatid iyo ana wuxuu ku soo kordhinaa mal laakiin dad badan ay aaminsan ma ogta kacbada mara yar ka gooso iyo darbigani waa barakaysan yahay iyo tusaale kale dadka badan markay isku dayaan inay taabtaan xajrul aswad marka macnaha ma xumo laakiin aniga fikrad ahaantayda waa la yukallifu Allah nafs macnaha naftaada baala ka rudin معناه حجر الأسود إلى تابتدي إلى قاعد تكون وتابتدي النبي صلى الله عليه وسلم مركو سميه جري حج أم عمره وش يسوي له بحث أساس ولا يجري مرك أنت بإلهي وأقول له مرك قف والبما أركت قيرد ساكت دريم بيسد ما أركت تقرب حد هذا هذا مرك عشك وكلا حسنا هذا عمره هذا حبابه وكبيجي أنا مالينا أنا ما دام وين ما دام ما أركت إيموشنال هذا أوكي وحيابها أو أنت سفر هذا أو كجرتي أنت ميلها مرمريسي waxyaabaha kuugu faniga badnaa qosolka badnaa markaad aragtay xataa ilaa hadda aad soo xasuusato maxay ahayd waxyaabo badan jiro tii iigu yaabka badneed waxay ahayd waxaa jirto gabar isla socodeen marka biyo wadatay biyihii marka ka dhacday waxay ka dhacday waxaan ka soo bixinay isla okay waxaan soo socodnay Ingiriiska biyo wadatay markay mareysay security-ga yiri biyo lama ogolo kaas wuxuu ku tiri diyaaraddan intaasoo dhowr iyo 10 saac isla soconay oona qabana markaas aan ugu biyo gudaha laga siina marka ana qofka cunto kaleete biyo kaleete waxyaabo qaar moogta lagu ogolo in security-ga la martid mid waa taas mid kaleete igu yaabada waxay ahayd gabara waxay wadatay yaanyuurta marka dhulkan anaga Mareykan waliba ay ka dhacday dadka waxa la emotional support animal ana qof qaar ah moogta xoolaha darteed aan soo karin marka yaanyuurti sidii waxa u wadataa cunug ay dhashay campa si u koolkoolinay si u qurqurxinay si u shushuminay maanta arwax xirtaya Soomaaliya gaar yaanyuuraha rafaadka lagu hayo si fiican marka macnaha horta wadan walbo dhaqan gooniya u leeyahay laakiin wadan kasta oo aan tagay arin waxa isleeyahay waxyaabaha ugu jeclaa waxay tahay wadanka haduu wadan muslimiin yahay hadii kale taba dadka muslimiinta si u nool yihiin wadankii iyo maaragtay aad uga helo waxay wadanka Koonfur Afrika inkastoo wadan muslimiin oo ahayn haddana muslimiinta ku nool awood fiican ay ku leeyihiin masaajid badan ku yaalo sida hadda Mareykan oo kale iyo Yurub oo kale waxay uga duwan yihiin waxay tahay maqaaxidaha waaweyn sida McDonald's oo kale ama KFC oo kale haday noqoto kulli xalaal waa meel kasta masaajida ku yaal ta kale tan waxay tahay aadaanka waa la maqlaan cayab banaanka waa qamoonada hadda aan ku jirno maaha
marka dadka u sheego xanan anaga waa la aadamaa laakiin maaragtay aashuna ku aadanaa marka hoos waay haa wixii si fiican ani waxyaabaha aan maqlay oo iigu yaab ka badnaa waxay ahayd maamo iyo caruurteedii oo markaas la keenay wadanka markaasaa loo keenay so maamada waxaa la tusay in lasoo adeegto Walmart ama Kroger meeshii laga soo adeegan lahaa bas maamadan iska cusubtaa ayada ciyaal yarar ay wadataa cabitaano waxay soo gadatay alaabtii cirka lagu galaya ah guriga iska soo dhigatay kaale arag laba koobay dhac ka siinay markay qadayso markaa hoosha guriga waxay u qabanee si aan caadi ahayn si fiican ayada marka isma lahan waxaana saa ku yeelaya maamadii hawsha iska wadataa iska baashaale active guriga meeshay wasaq ka aragto hore ka dhaqay because waxa waaye cirkay ku jirtaa isma oga bas maanta oo kale wiilal u soo martiyay ilan maamo imaatay oo in la soo booqdo way moogtay waa loo imaaday wiilasha ay imaanayay tiri bariis ay u diyaarisay hilib wixii dhan biyo caadi ah iyo koobab eber ah iyo dhalooyinkii ay u keentay marka wiilashii markay dhigtayba ay laabatayba way isu fiiriyeen marka subhanallah maxaase wax u jiraan waaye bahaladan noo keenay maxay tahay bismillah marka wuxuu dhahay ma aqaan kullay guriga amaaba laga isticmaalaa mid kale wuxuu dhahay ma aan weydiino maamada macquul ma ahan alaabtan markaas hooyo kaali bal cabitaanada maxaa noogu keentay alla labadan dhala markaan cabo kaali arag caajis ma dareemo shaaxi dhaga jibiya camal active ha waxay tiri guriga saan u hagaajiyo saan wax u sameeyo cabitaanada aan ugu heesto waaye meeqa cabaysaa waaye saan Mareykan u imaaday muddo adiga 6 bilood oo kala ah kuwaan aan ku noolahay baan ma anaaba caajisaba horta markaan caajisaba cabitaankan ma sha Allah kan ana u duceeyay taagan markaas Allah hooyo ma taqaanaa bahaladan hee waa loo sheegay ereygii rasmiga ay taqaanay qamri Allah hooyo waxaan qamri waaye maamadii markaas ay baroor bilowday macnaha qamriga anaga moogta wax kala u haysanaa laakiin inay wax gooni yihiin wayba ku cabitaan ha sax markaas maamadii baroor ani ma qamri si fiican waxaan hadda qamri miya 6 bilood aan cabaayay soo waxyaabaha iigu yaabka badnaa aniga aan maqlay oo qofka iiga sheekeynayana waa qofkii meesha tagay la casuumay oo meesha tagay waay ay ahaayeen safar hadii lahana taariikhda kale maqlay waxay tahay ii sheeg dadka markay cusub yihiin oo kale wadankeeni qof markuu rabo inuu caana gato sharciga wuxuu ahaa moogtaa inuu suuqa tago iska dhadhabiyo family imaadeen marka waxay tageen leeyahay dukaanka alaabtii ku shuban leedna qaadato dukaankii weynaayo lagu caana lagu gaday inta tageen fureen waa dhadhamiyaan kan ma macaan waa daboona waa dhigaan waxa ku soo aadaa umalena furbulug iyo marka furbulug ku soo aadaa waana dhici kartaa waxyaabo badan oo adduunka waxa jira moogtahay qofka bini aadamka ku dhici karto si fiican marka waxyaabii Mareykanka ma aragtay kuugu cajabsanaa ma aragtay aad leedahay maanta Allah ilaahay wadankaas sidoo ahaa iyo sida loo maleeyo iyo markaa timaadey sida uu yahay maxay wallahi horta hadda dadka aan joogin Mareykanka still way aaminsan yihiin Mareykanka waxa loo maleeyaa in qofka marka uu banaanka ka joogo saa marka uu imaatibba guriyaasha ugu qatarsan Africa inaad dhisan doontid in lacagta geedaha ay saaran tahay la soo daadsado sidii xumurkii oo kale ama maaragtay gabkii wax la dhihi jiray ma aqaan oo kale loo soo daadsado qoon oo kale sidii oo kale loo maleynaya waa faraxsan tahay waa soo degay 3 bilood ugu horeysa hay'adiya ku kalkoolinayso kolba meel lagu jiidaya kiradiya laga bixinaya waana taas hadaa ma aragtay si sharciyo ku timid hada sharci ku timid way moogtahay sharciga ku timid 3 bilood aad dhamaanayso adoo ka qasaneen waxba ogeyn warqad xiimeysa imaanayso maxaa waxa lagu dhaxaya laga bilaabo bishan hadda soo socoto kiradii korontadii biyihii raashinkaagii ada iska bixinay
inteeka keena aniga bilaabay markaasaa bilaabay marka صح orodka markaa aagashid markaasaa lagu leeyahay sawda 20 sano ay joogtaa gurina may dhisanina lagu leeyahay waa maalintaas orodka bilowday waay so waxa dadka ay ka aaminsan yihiin in fartaasi soo dhawaale soo lama dhigi jirin il markiiba aad taajir noqonaysid oo gaay aan noqonaysid laakiin sidaas ma ahan igu soo orod ma hadii sharci la'aan aad ku imaatana waaba ka daran waxa arkaysaa xariif aan weligiisa maqaayo ka shaqeynin oo dhahayo ma ana maqaayo ka shaqeynay dhihi jiray markuu imaado danta intay run u sheegto maqaayo ka bilaabay alaab dhaqo ka bilaabay hatta dhahayo maqaayad intuu tago walaalo meel aan kaaga shaqeey ma haysa dhahay ma waa buuxan markaas qofku wuxuu dhahayaa qofka markaa wuxuu dhahayaa no ma hayo markaas war xalata alaabta xataa iidib صح inuu dhahayo because dadka say u haysteen qofku moogtahay sida tusaale hadda Soomaalida qofka markuu darbiga ka soo boodo kaleeto macnaha qofka imaanshaha Mareykanka marka imaadid aaba dhibki ugu weyn ku bilaabay markaas macnaheeda ma aha maaragtay inaad dhulkan iyo Latin America soo martay sheekadii dhammaan qofka markuu imaado waa horta waxa la dhaho detention center inuu soo maro laga yaabo 3 bilood ilaa 6 bilood ilaa inuu ku qaadato marka la soo dayo aad tira sharciga ana raadsana ballanta lagu dhiga maalinta timid oo ay isdhiibtid ilaa ballantaas waxa laga yaabaa inay qaadato 6 bilood ilaa sano intaasna waxa laga rabaa inaan noolaatid ina ma aragtay isdabartid waxa ku soo dhaweeyay ani oo kala ku soo dhaweeyay oo asxaabtii guriga isla joognaa 2 bilood marka joogto bisha kale waxaan kugu bilaabay waxa suugaday kirada ma qaybtaada ka baxsatay sax waa raashinka ma qaybtaada ka baxsatay waagiya kugu bari ama waxa laga yaabaa qofkan Afrika uu hadda ka yimid macnaha inuu aqoonin in wiil ama gabar ama dumar ama qof walba inuu maaragtay asaga cuntadiisa karsado inuu guriga nadiifsado weelasha dhaqdo in maaragtay dharka dhaqdo intii baan la garanaynin intuu soo garanaynin qofkii laga yaabaa inuu meesha iska taagay so waxyaaba wiil oo hadda German jooga ayaa muuqaal TikTok soo dhigay laakiin cabirka uu bixiyay wuxuu ahaa cabirka saxda ah wadankan ka jiro wuxuu dhahay isaga tusaale iska soo qaatay wuxuu dhahay anoo Jarmalka jooga oo ee kala kacsan tahay Afrika lacag u dirayay intaas lacag aan haystay ayaa nin ibaalu dhahay war imaam meeshan gacantaada shumine hadday ku kala kacaysa soo ilahay oo soo tahriibu dhahay isaga ma soo tahriibin laakiin tusaalo wuxuu Mareykanka imaaday maalintan Mareykanka imaaday oo aan tahriib ku soo galay abtuna wuxuu dhahay raashinka isaga aan u kariyaa u dhahay isaga waa iska baxa oo iska soo shaqeystaa intuu maqan yahay raashinkiisa ilaa waa aabihi guriga uu noqday ana diyaarna raashinkii bana diyaariyo dhahay ana hawshii wado ana macnaha saamoodin ma ahana meesha ha ku soo ordina hadii aad ku soo ordaysaana mana u diyaar garooba